bisha Shacbaan 15 markay gaarto ma la soomi karaa nicamtu Ilaahay nasiye waxa kamid inuu nasiye maalmo ama waqtiyo ka fadli badan waqtiyo kale waxa kamid bisha Shacbaan alxamdulillah wassalatu wassalamu ala rasuulillah wajigtana assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa xalaqadii lixaad oo ahayd bisha Shacbaan iyo ahkaamta nabigana sallallahu alayhi wasallam waxa ka sugnaaday xadiis saxiix إذا انتصف شعبان بش شعبان هدين نص نقطة فلا تصوموا هسومنا يا لسومي وحديث صحيح هواي يا سومي كيرين هدبو حديث كان سان كفهمين الرسول صلى الله عليه وسلم وحونو شيء شعبان مالنتي شن إتوبن جارتو مالنت اللحية طبنات إنا لسومي كيرين هدبا يا سومي كيرين مدد كدنا مسه دad qaarkooda loo ogol yahay inay soomaan 16 Shacbaan wixii ka dambeeyo bisha Shacbaan 15 keeda wixii ka dambeeyo inta soonta loo ogol yahay waa saddexdan qolo hadda saddexdan qolo mid ka mid ah tihid waa lagu ogol yahay ina bisha Shacbaan 15 keeda wixii ka dambeeyo aad sii wadatid soonkaaga qolada koobaad waa qolo hore u bilowday soonka inta 15 la gaarin haddoo kale sooman tahay koowday bilowday shantay bilowday toddobaday bilowday 10 waxay bilowday 15 Shacbaan ka hor ayay bilaabeen waxayna rabaan inay sii wataan qoladaas waa u bannaan tahay waana soomi karaan ilaa laga gaaro Shacbaanka dhamaadkiisa qolada labaad waa qolo caada soo lahaan jirtay sanadka dhanba soo soomi jirtay isniin iyo khamiis walba soomi jireen ama maalin dhaafay soomi jireen qoladaasna waa loo ogol yahay inay wataan xadiidkan oo 16 wixii ka dambeeyo ayaga kuma tabiq maayo qolada saddexaad waa qolo deen lagu leeyahay example qalla lagu leeyahay soonkii la soo dhaafay ayaa maalmo laga leeyahay way la soo jiidanto hadday la soo gaartay qoladaasna waa loo ogol yahay lana sababta loo ogol yahay waxay tahay waa qallo daba saddexda qolo oo loo ogol yahay waa ogaanay yaan soomi karin Shacbaan maalintii 16 la gaaro daba qoladan loo ogoleen waa hal qolo waa qof maskaxdiisa qabsatay wuxuu yiri maalintii 16 Shacbaan la gaaro wuxuu hadda rabaa soonka inaan bilaabo ma bilaabi kartid ugu dambeyntii walaaleen nicmadan oo bisha Shacbaan la soomaayay inay kan kale aanan gaarin laga yaabaa sida darteed nafteyda iitiina waxaan u dardaarma inaan ku dadaalno bishan inaan soono khayr Allah idin siiyo جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ولا لهنا كلا أسي قد بيها كفائديستاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته